agaasimaha waaxda ciyaaro wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo uu weeliyay mas'uuliyiin ku socda xiriirka banooniga lugta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay badda Afrina garoon cusub oo la ciyaaro banooniga lugta oo ay hirgeliyeen ganacsatada dhalatay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku hirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Anka hore munaasabada la furay garoonka oo baa ku hadalay Cabduqaadir Shariif Xiro oo kumid ah mas'uuliyiinta ciyaartoyda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo madax ku tirsan xiriirka banooniga lugta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo dhiirigelin jeedi dadka deegaanka ma eed hambal yahay sida waqtiirada leh oo ma arnay halkasnimada dhalinyarada oo ka jeedo gobolku suubiyan garoon oo dhanka magac dari Tayo Stadium oo runtii horumarka oo footballka gaar ahaan ka hormaraw sportska qaabta footballka runtii ma waha arin eedlanka faraxa waaye waa horumarin oo geeka la deeriyo balaasna may ku kooyana dhalinyarada oo geeka ganacsatada ah oo iska xilqaami intii oo garoon suubiyan haddana may ku sugaanayaa tanwiin intii la suubiyan soo ayoon ku horumariyaan sportska ana oo marne inta ka salaamo guddiga farsamada koonfur galbeed xiriirka kubadda cagta iyo agaasima waaxeedka wasaaradda dhalinyarada iyo sportska iyo dhammaan telefishinka iyo ganacsatada oo geesinimada ee marne iska xil saaran intii oo horumariyaan sportska wala ka faraxa waay wal taariikhda siin galo doonto may marqaati keenaha intii xilqaamka iyo geeko oo dhibaatada jirta isin suubadeen dhalinyarada ay bahdilnay ay meelo birshoon banay mashquulkaas lan kastama ka fikiraw eedan kama hasantiin haddana ma maleeyahay kulli walaagi oo la sheego faday quraantay baa la sheegi waqtigan oo hayna ma waa haddana may ku wareejiyeen agaasima waaxeedka wasaaradda dhalinyarada iyo sportska si uu sina walaagi eray oo marne oo ka zaa'idiyo uu sina kor oo sheega waana ma hasantiin salaamintiin galabtan may sharaf weynigaha magaalada Baydhabo oo ka daafurno garoon la ka magacaabo Tayo Stadium kaasoo dhisay may dharay ganacsato degmada Baydhabo oo ka nool marka may mahad balaaran ku jeediyay dadkii oo garoonkaas ay taabagiliyay iyo fikradii iyo maskaxdii iyo dhaqaale kiisho iyo garoonka may dharay iyo ka fureen eedeedan ka mahadsanyiin dadka garoonka Mayland dhisay intii oo may dharay ciyaaro la ka dheela ciyaaraha soo aan dhalinyarada may dharay maskaxdii iyo jirsho oo isu ka dhismaaw taasoo lagu horseedo may dharay waxyaalaha oo qaab dooransada may dharay muqaadaraadka iyo waxyaalaha kale oo xun oo bulshada saameeyay marka dadka dhisi iyo maamulkii may dharay oo garoonkan taabagiliyay eedeedan mahadsanyiin oo may mahad balaaran jeedaan anoo ka hadalo magaca xiriirka kubadda cagta ee koonfur galbeed eedeedan mahadsantiin marka may laha saacad kasta wal alla walaay oo may dharay garoonkan ama may dharay teamkan oo milan dayactireen oo suubiyaan may dhana markaas eedeedan mahadsantiin may ku qayb ku eeteena sportska waxda sportska qayb ku eeteen agaasimaha waaxda ciyaaro wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Deeq Ibraahim Aadam iyo siina ku hadalay goobta ana inay ku qayb galna xafladda furitaanka garoonka Tayo Stadium oo la ka furay magaalada Baydhabo garoonkaas oo furdeen dhalinyaro oo ku jeeda deegaanka koonfur galbeed oo ganacsato maybe eedan kama hadlagaan dadkaas dhalinyarada oo ka dhiiridi inay meel raayso maskaxdiyo fikirsho meel raayso dadaalsho iyo hantidiyo inay giliyaan sportska meel raayso dhalinyarada deegaanka oo sportska jeen meel raayso fursad aan ka nagad garoonka oo geeko nida furayna ma garoomadii hore oo dhan furo jarnay amal waa garoon hadda ku casriyeysan waan ku weyn marka garoomadii hore ma in badanayaan afar iyo shan shaqno garoonkan garoon weyn garoonka oo Baydhabo ku weyn yeleero kor oo hadda la ka furay oo roogagan macmalka yaala iyada aan ka mahadsantiin lana ganacsatadii oo ka dhiiratay inay hantidii iyo fikirsho bagiliyaan ka wasaaradda ahaan maybe meel dhiirigeliyaan dadka noocan inay garoomada noocan furan
hordhaagna ka dhiirigeli jiran haddana ma yeelanaa eedan mahadsantiin may kale aan kontaan ku mahadnaga faday Aba Sports Koonfur Galbeed iyo xiriirka kubadda cagta Koonfur Galbeed oo noo kala rogan eedan mahadsantiin isiigna sidii qaabka shaqada wanaagsan isin u qabada tan deegaankan iyo sportska la hormariyahay walbana sheegfan waqtiga ma hayna marka xilli gabagabay marahay ciyaartooydana meel kasoo yihiin sig binooniga dheer marka may rajeen in waqtiga inta la gaabsan wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Maxamed Muumin Maxamed warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo.